maamulka cusub ee maamulka galmudug isteed dhawaan u magacaabeen degmada balanballe ee gobolkaasi galgaduud ayaa kormeer waxa ay ku sameeyeen qaybo kamid ah deegaanada hoos yimaada magaaladaasi balanballe warbixinta warkaana waxa inoo sii faahfaahinaya wariyaheena سعيد عبد محمد maamulka cusub ee degmada balanballe ee dhawaan magacaabay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa bilaabay howlo nabadeyn iyo isdhexgalka bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada balanballe ee bartamaha Soomaaliya waxaana ay maanta booqdeen deegaanka Tuulo Barwaaqo oo hoos yimaada degmadaasi halkaasi oo ku soo dhaweeyeen maamulka deegaankaasi ee qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu maamulka cusub ee balanballe markii halkaasi gaareen kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Tuulo Barwaaqo oo hoos yimaada degmada balanballe Xabiib Dhagacaleen waa gudoomiyaha deegaanka Tuulo Barwaaqo iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi ayaa ugu horeyn maamulka cusub ee degmada balanballe uga warbixiyay xaaladda deegaankaasi gudoomiye soo dhaw baan ku leenahay deegaanka Barwaaqo waa deegaan ballaaran waa deegaan baahidiisa inta gudoomiyaha aad ka warhayso xaaladiisa hoos u sii ogeyd weeye waa deegaan dadka ku nool ee iska saaran yihiin reserve Ethiopia iyo midka Soomaaliya culaysidiisu ay labaduba halkaas ka faa'iideystaan ku soo dhawow baahida ka jirta wax laga warbixin karo maahan ilaahay un baa xaaladeeda hoos u sii og gudoomiyaha cusub oo dawladdu soo magacawday Xuseen Liibaan inaan ku soo dhaweyno degmada balanballe taasoo gudoomiyayaashii hore aysan noo imaan jirin oo aan soo dhaweyn jirin oo aan baahida iyada uga warrami jirin oo aysan soo booqan jirin oo aad moodo inaan xil gaar ah uusan ka saarnayn magaaladan oo degdeg oo hadda ay u baahan tahay waxa kamid ah dhaba male shaag male xagga balanballe u leedahay xagga umale caabadu waa magaalada madaxnimada umale shaagaas oo marrow aan falayno ku soo dhawaada waa baahida koobaad baahida labaad oo ah iskuulkii oo aan dhisnay oo hadda ilaa 6 macallin u baahnaan lahaa laakiin hadda 2 macallin ka shaqeyso ku soo dhawaada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo odayaashii dhaqanka ee ku wehelinayay socdaalkooda ayaa markaas iyaguna dhankooda warbaahinta la hadlay Barwaaqo waxaan ognahay inuu yahay laf dhabarkii balanballe inuu yahay inaan laga maarmin codsiyaal badanna waad soo jeediseen annaguna inaan cabashadiina qaadna xaq baan u leenahay oo waa idinku nimi ilaa 8 deegaan oo maamulka ay casuumaad ka heleen oo balanbal hoos yimaada annaguna aanu ku dhiirigelinay in la isku xiro bulshada iyo maamulkeeda in la isku xiro si isku fahmaan ama ay u wada jaan qaadaan deegaankan Tuulo Barwaaqo waa deegaan xagga xoolo dhaqatada istiraatiijiya u ah ilaa waxa lagu qiyaasaa ilaa 4,000 oo qoys inay ku hareeraysan tahay barkadaha ee ka qodo markii la qiyaaso ilaa 400 oo barkadood bay gaarayaan oo iyada ku xeeran waa deegaan bulshada balanbal laf dhabar u ah weeye oo macnaha ay aad ugu xisaabtamaan insha Allah qaadir annaguna ka salaadeen ahaan waxaanu waftigan hadda uga midnahay inaanu isku xirno bulshada deegaamada balanbal hoos yimaada iyo maamulka inaanu isku xirno si wada shaqayn buuxda loo helo loona xisaabtamo Xuseen Liibaan warsame oo gudoomiyaha cusub ee balanballe iyo ku-xigeenkiisa Nuur Maxamed Diirshe ayaa ugu dambeyn la hadlay warbaahinta waxa ayna markaasi ka warbixiyay dhinacooda ujeedada socdaalkooda Tuulo Barwaaqo waxay salka ku hayso waaqow haddaad soo dhaweysaan iyo haddii soo dhaweyn baan markii koobaad oo soo dhaweynaynaa waxaan isku soo dhaweynaynaa inay sharci ay tahay oo dadkii naloo doorto in wax qabadkeeda iyo hawsheeda loo idmaday inaad tihiin marka sida awgeed haddaad soo dhaweysaan iyo haddii soo dhaweynba annagu waa ku qasbanahay haddaan maamulkiinahay haddii wax qabadka deegaanka waa waxaan u nimid nasiib wanaag haddana annagu 7 beri maamulka iyagu magacaaban yahay safarkii koobaad oo aan ku bilowno barwaaqay noqoto waxaana koosgareeyay degmooyinka hadda balanballe ku xeeran deegaamada ku xeeran iyay ka mid tahay sida gudoomiyaha ku-xigeenku sheegay waxaan magacaabanahay 8 beri ama 9 beri waxaan sameynay wax fara badan oo aan isleenahay waa horumar waxa horumarka aan sameynay kamid ah waa tashi aan bilownay oo aan noo soo dhamaan oo aan rabno bulshooyinka dhammaan inaan la tashano deegaanka balanballe ku xeeran ama balanballe oo dhan ka kooban yahay degmadu ka kooban tahay sida magaalada gudaheeda
iyo beelaha balanbal ay xukunto dhammaanteed wadatashigaas waa noo bilowday waxaan kaloo rabnaa hadafka koowaad oo aan ku soconayna waxaa weeye wadatashi odayga hooyada dhallinyarada culimo awdiinka aqoon-yahanka kuma soconayna waxa innagu aan jaangoosannay oo hadafa waxaan ku soconaynaa siyaasadda galmudug siyaasadda federaalka iyo aqoonta iyo caqliga ka yimaada bulshadayada oo aan labadooda isku geynay baan ku shaqaynaynaa haddii ilaha yidhaahdo socdaalka maamulka cusub ee balanballe ayaana qayb ka ah dadaalo nabadeed oo uu sheegay maamulka cusub in bulshada deegaanada hoos yimaada degmadaasi ay u samayn doonaan سعيد عبدي محمد تي في عالمي كالسن عابد واق